Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada muuqaalkeena ee barashada Affinity. Muuqaalkan waxaa ku sameyn doonaa logo design ama sameynta logooyinka adoo isticmaalaya softwareka Affinity. Marka hore meeshan waxaa noogu diyaarsan sawir oo icon aan ka rabo logo inuu noqdo. Meeshan waxaa waaye waa malay waaye. Malaygan waxaa rabaa inuu noqdo logo icon aabka logodan oo u muuqanayso. Waxaa isticmaali doonaa shapes si aan ugu tusaale qaado sawirkaas. Waxaa marka hore geli doonaa qaybtaas oo shapeska, kadib waxaa ka dooran doonaa ellipse tool. Ellipse tool ayaad ku dhex sawiraysaa adoo isticmaalaya stroke bas fill color ha gelin. Sidoo kale shift isticmaal si uu sawirka uusan shapeka uusan u dhaqaaqin. Shift haddaan ka dego waa ujeedin waxaa waaye cabirka uu isbedelaya. Marka waxaa waaye inaad shift qabatid. Markaa sameeyid kadib move tool soo qabo, kadib angalkaas la sin. Intaas markaa samayso kadib kan waa koobiyeysan kartaa adoo isticmaalaya alt, kadib dhinaca kale aad ku sawiran kartid. Sidoo kale cabirkan wax yar waa inaad ku dartaa. Sidoo kale qaybtan ayagana shape kale waa. Marka midkan koobiyey kadib qaybtan gee. Qaybtaas markaa geysto waxaa zoom markaan xoogaa soo dhaxo waxaa waaye qaybtan shape kale waa. Marka control minus dheh, kadib alt dheh qaybtan gee asna. Control plus dheh, zoom soo dheh. Meeshan saa ujeediinba connection ma dhacayo. Labada inay isku dhagaan rabaa si hadhow shape builderka uu kugu kala gooyo. Waxaa leeyahay shift kadib cabirka ayaa wax ku daraya. Kadib halkan geynaa. Meeshan inay isku dhigday iyo inkaas see ku fahmi karaa. Waxaa leeyahay control Y ayaan leeyahay. Control Y markaa dhaho kadib sidaa ujeedin waa isku dhagantahay. Haddiisan isku dhaginayn waxaa sameyn kartaa moving ayaa sameyn kartaa, waa soo jiidaysaa kadib waa ku dhijin kartaa ellipse toolkaas. Saan u noqdo waxaa leeyahay haddana control Y. Kadib control minus cabirka ayaa yareynaya zoomka. Sidoo kale angalkan asagana waxaa sameyn kartaa midkan koobiyey alt isticmaal kadib qaybtan gee. Sidoo kale qaybtan si aan u sameeyo waxaa isticmaali doonaa midkan koobiyey alt isticmaal. Qaab noocaas ayaa u sameeyey. Meelahan oo kale waxaa waaye line oo kale ayaa galaya, line oo meeshan isku dhijinaya. Waxaa isticmaali doonaa pen tool. Kadib qaybtan ayaan ku sawiraya. Click dheh. Kadib pen toolka halkaas ku sawiro. Connectionka asagana inuu dhacay sidee ku ogaan kartaa. Waxaad leedahay control Y. Waa kaas inuu isku dhagnaadaa muhiim ah saa ujeedinba. Control Y dheh ka bax. Kadib control minus zoomka saan u yareeyo. Sidoo kale halkan ellipse tool ayaa looga baahan yahay. Isagana sawiro. Sidoo kale meeshan sidoo kale halkan isagana ellipse tool. Meeshan intaa waa pen tool isticmaal.
sidoo kale angle meeshan. Midkaan koobiye alto dheh. Okay, hal xaba ayaa ii dhiman waana midkaan. Halay koobiye iyo halkaan gey. Okay, intaas markaa sameydo waxaa waaye all inaad select garayso waaye si shape builder aa u doorato. Okay, cafwan. Halkan ayaa wax iska bedelay. Kan iyo midkaan laba ayaan ka dhigi doonaa laba shape. Shape-kan ka ayaa u isticmaali doonaa. Okay, hadda marka shape builder ayaa isticmaali doonaa. Dhammaantood waa wada dooran doonaa. Dhammaantood markaan doorto kadib waxaa leeyahay shape builder. Shape builder tool waa kana. Shape builder dooro. Kadib meeshan waxaa kugu diyaarsan plus iyo minus. Minusta waxa banaanka yaala ayaan ku jari doonaa. Minusta dooro marka hore si aan u jaro waxa banaanka yaalo. Okay, wixii banaanka yaali markaa dhabayso inaad jarto kadib waxaa isticmaali doontaa qaybtaas oo pluska ah si gudaha aan u furo. Mar gudaha si aad iskugu furto waxaa isticmaali doonaa plus. Okay, meelaha qaar oo kaa qaldameen waxaa samayn kartaa dooro kadib control double click dheh. Kadib saxo. Kadib door color ku shubo. Stroke-na ka saar. Okay, intaas markaa dhamayso kadib waxaa la rabaa inaad u save garayso loogada qaab PNG ah. Okay, sidee qaab PNG ahaan u save garan karaa? Marka hore waa inaad ka saartaa background-kan white-ka ah ee default-ka ah. Waxaad samayn kartaa qaybtan ay ku qoran tahay document setup. Kadibna background-kaas white-ka ayaa waxaa ka dhigi doontaa background oo transparent ah. Okay, qaybtan waxaad samayn kartaa hoos intaa u baxdeed kadib transparent background-kan inaad furto. Kadib aad dhahdo okay. Saa u jeedid background-ka dhinacyadaas boxyadaas haddaa aragto waxaa waaye background-kan transparent waaye background oo white ah ma laha. Loogadana macnaheedu waxaa waaye meel walba aad saarto waa suit garan kartaa oo way ku habboonaan kartaa iyadoo background aysan wadan. Intaas markaa sameydo kadib
kalarka waa ka bedeli kartaa iconkan. Waxaad samayn kartaa kalar oo white ayaa siin kartaa. Kadib file dheh, kadib export dheh, kadib qaybta exportka dooro. Ama waxaad samayn kartaa iconkan export PNG meeshaan yaalo ayaad taaban kartaa. Kadib magac ayaa u baxsan kartaa. Kadib waxaad leedahay save. Hore ayuu jiray wuu leeyahay. Ayaa ka bedelaya kadib save ayaa leeyahay. Okay, halkan ayaa kusoo gabagabeyn doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.